Israa'iil ayaa maalintii lixaad sii wada duqeymaha ay ku hayso deegaanada reer Falastiin. Maanta oo Khamiis ah, deegaanada duqeynta xooggan ay ka geysatay waxaa ka mid ah deegaanka Al-Sabra, Al-Karama iyo Khan Younis. Dhammaan deegaanadan iyo xeryaha qaxootiga waxaa ku nool dad reer Falastiin ah, kuwaasi oo si ba'an loogu duqeeyay guryihii ay deganaayeen oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalyahanada reer Falastiin dhankooda waxay la soo baxeen awood aad u sareysa oo ay isaga difaacayaan ciidamada Israa'iil oo taageero xooggan ka helaya dalka Mareykanka oo markab dagaal iyo saanad militari u soo diray dalka Israa'iil oo sheegay in ay kusoo duuleen kooxo argagixisa. Inkastoo Mareykanka uu dafiray dadka reer Falastiin in ay u dagaalamayaan xorriyadooda oo ay dhulkooda intiisa badan ay gacanta ugu jiro xukuumadda Yahuudda oo taageero dhan walba ka helaysa dowladaha reer galbeedka oo si aad ah isugu garabsiinaya xasuuqa shacabka reer Falastiin. Maalintii shalay, garoonka diyaaradaha Israa'iil waxaa gaaray diyaarad dagaal oo uu leeyahay Mareykanka, waxaana meesha ka dejisay saanad militari oo isugu jira agabka ciidamada oo uu ku taageerayo ciidamada Israa'iil oo xasuuq aad u xun ka geysanaya deegaanada marinka Gaza. Waxaana la sheegay inay isticmaalayaan hub mamnuuc ah oo aan loo isticmaali karin dagaalka magaalooyinka gudihiisa, kuwaasi oo burbur xooggan u geystay guryaha shacabka reer Falastiin ee marinka Gaza. Doorka wadamada Carabta ee dagaalka Israa'iil. Ilaa iyo haatan, wadamada Carabta ayaan la imaanin door lagu badbaadin karo shacabka reer Falastiin, waxaana caddaatay khiyaanada dalalka reer galbeedka oo si cad ula saftay Israa'iil. Dalalka kale ee Carabta waxaa loo sheegay in ay indhaha ay ka fiirsadaan oo ay daawadaan, aan gacan siinin shacabka reer Falastiin. Dowladda Masar oo daris la ah Falastiin ayaa diiday in ay xadkeeda ay ka gudbaan wax gargaar ah oo u socda marinka Gaza. Doorka dalalka Carabta ayaa kusoo koobmay keliya cambaareen iyo in dalalka qaar ee Carabta ay la saftaan Yahuudda. Hogaamiyaasha Xamaas waxay dalbadeen in maalinta Jimcaha ee ku beegan beri dalalka Islaamka oo dhan lagu qabto dibadbax looga soo horjeedo ficilada ay sameynayaan Yahuudda oo si arxan darro ah u xasuuqaysa shacabka reer Falastiin, ayna rabaan dhammaan ducada dadka muslimiinta meel walba ay ka joogaan adduunka. Dalalka caalamka qaarkood waxay sheegeen in Yahuudda ay ku xadgudubtay sharciyada iyaga oo ka dhanka ah. Mar walba waxay awood u isticmaali jireen sharciyada, laakiin waqti xaadirkan waxay doonayaan dalalka diiday sida ay wax u wadaan. Yahuudda ayaa doonaysa sidii ay ugu qancin lahayd xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay in Xamaas ay tahay urur argagixiso. Waa in cunaqabateyn lagu soo rogaa, meeshana laga saaraa ururka Xamaas. Xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay waxay ku doodeen Xamaas in ay tahay urur u dagaalamaya xorriyadooda, ayna ahayn urur argagixiso. Siyaasadda Yahuudda ee Bariga Dhexe. Yahuudda ayaa muddo dheer waxaa xumaa xiriirka kala dhexeeya wadamada Carabta, kuwaasi oo dhul aad u weyn ka haysta dalalka Carabta. Sanadihii ugu dambeeyay, dalalka Carabta ayaa waxay dabadhilif u ahaayeen Yahuudda. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii ay Israa'iil ula heshiin lahayd dowladaha Carabta, walow dowladaha qaar xoogaha ay dib isaga dhigeen heshiis ay waqti hore ay la galaan dowladda Yahuudda. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dhawaan waxaa la doonayay sidii ay u soo celin lahayd xiriirka kala dhexeeya dowladda Israa'iil. Inkastoo heshiiska aan la gaarin, waxaa dhacay dagaalkan xooggan oo u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin.